madaxda sarsare ee xisbiga wadani oo hogaaminayo musharaxa madaxweyne ee xisbiga ahna gudoomiyaha golaha baarlamaanka Soomaaliland ayaa habeenkii xalay si dhiiran loogu soo dhaweeyay xarunta gobolka Saaxil ee magaalada Berbera dadweyne aad u tiro badan oo ka kooban qaybaha kala duwan ee bulshada oo isticmaalaya gaadiid aad u tiro badan ayaa ku soo wareejiyay jidadka waaweyn ee dhex mara magaalada Berbera intaasi kadib waxa ay ka qayb galeen xaflad weyn loo soo agaasimay oo loo qabtay beesha bariga magaalada Berbera oo sheegay inay ka soo baxeen xisbiga kulmiye isla markaana ku biiray xisbiga wadani loogu qabtay hotel Mansour ee magaalada Berbera ugu horreyn waxa halkaas ka hadlay oo hadal soo dhaweyn iyo taageeraba isugu jira ka soo jeediyay gudoomiyaha gobolka Saaxil ee xisbiga wadani iyo mas'uuliyiin kale oo tiro badan waxaana kamid ah hadaladoodii hortu caawa waxaynu jabinay toddobadii cajaayib ee adduunka tiray inaga jabinay oo waxa jabiyay beesha mugale ee miisaan kale ee ku soo birtay xisbiga wadani ee bariga gobolka Saaxil runtii waxaan arki karaa waa baalashii xisbiga kulmiye ku duuli jiray oo maanta dadkoodii hanan kari waayeen waxaan qabaa hogoshin ay hortay wadani intaasi kadib waxa hadalka qaatay oo u mahadnaqay dadweynaha sida balaaran u soo dhaweeyay isla markaana taageerada u muujiyay xisbiga wadani gudoomiyaha golaha baarlamaanka ahna musharaxa madaxweyne ee xisbiga wadani Cabdiraxmaan Ciro iyo Xirsi Xaaji Cali Xasan waxaana kamid ah hadaladoodii xisbiga wadani waxa qorshihiisa kamid ah in deegaanada Soomaaliland la soo gaarsiiyo deegaanadu way kala hormarsan yihiin marka insha Allah waxa programka ku mid ah siyaasiga in deegaanada duu dhacay aan horumar ku gaarin horumarka loo badiyo oo la gaarsiiyo waxaan kaloo ku faraxsanahay Berberi waa deegaankaygii waxaad u egtahay berigii hore oo u ekay in shacbiga reer Saaxil aad moodo inay katinada ku xidhnayd marka waxa muujiseen in katinadii iska jabiseen katinadu ma xukuumadda ahayd midkeeday ahayd ma garanayo laakiin waxa muujiseen in dhammaan katinadii iska jabiseen oo aawo xortay ma muujiseen waxaan idin leeyahay waxa arki doontaan wixii naa soo dada ee rag iyo dumar buuxa ee hoolka buuxiyay ee dareenkiinu idin keenay aan qofna la khasbin qofna lagu laalushin berito qaar yiraahda ma ahayn adama orama waa kuwaase beeshii bariga Berbera ma ahayn qaar idin yiraahdo idin dafra arki doontaan waxaan leenahay waa dad aqligooda iyo garaadkooda qaba iyaga ana doortay inay wadan yimaadaan aadna way ugu mahadsan yihiin annagu dafiri mayno kuwa kulmiye jooga laakiin waxaan leenahay kuwii kulmiye joogay waa kuwan oo intii badneed halka yimaadeen waxaana isugu hadhi doona kulmiye balada ilaahay insha Allah mustaqbalkana waynu arki doonaa afar group ay isugu hadhayo group waxa weeye waa qolo qabyaalad ku indhalo iyaga waxaan leenahay Allah ka daweeyo hadda inaga inala joogaan kaynala joogay ka halka jooga waxaan leenahay in qofkii qabyaalad ku indhala Allah ka daweeyo waqtiga intii ay magaalada Berbera ku sugnaayeen waxay kulamo go'go'so la qaateen qaybaha kala duwan ee bulshada isla markaana waxay maanta salaad jimce kula tukadeen mid kamid ah masaajidada magaalada Berbera Cabdirashiid Suul Somali Cable TV Berbera